حمام نودي نودي سل على سعودي حمام نودي نودي حمام نودي نودي حمام نودي نودي سل على سعودي حمام نودي نودي أطفالنا أحبابنا يا نسل خير أمتي يا أمة القرآن هيا نقيم دولة للعدل والحرية يقتلها الإحسان إسلامنا يدعو إلى تسامح ووحدة فكلنا إخوان لا فرق بين أبيض وأسود أحبتي فلنحيا في أمان نعم نحب وحدة تجمعنا على العمل قلوبنا مفعمة برحمة ومن أمل نخرج نمضي قدما شعارنا هي عملون يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة موضوع إن شاء الله تعالى درسك وحن نغضنا بإذن الله أسباب سعة الرزق أسبابتا keenta in ilaahay tabaaraka wa tacaala uu addoonka u waasiciyo risiqa ama risiq waasica inuu siiyo waxyaalaha sababta u noqon kara ama qeyb ka mid a ayuu darsigeenu ku saabsan yahay saa macnaheedu waxa weeye risiqa in addoonka lagu cidhiidhiyo ilaa uu gaadho heer faqri iyo baahi siyaada ah waa arrin ilaahay tabaaraka wa tacaala uu qadaro haddana waa arrin nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uu allah ka magangeli jiray oo waxaa ka mid a dacooyinkiisii allahuma innii acuudu bika min alfaqri alla waxaan kaa magangelayaa faqriga faqrigu waxaa la yidhaahdaa waa baahida siyaadada ah ee ruuxa noloshiisa dhib u geysata ama dhabarka ka jebisa waxoogaa miskiinnimada dhaanto oo ruuxu waxbuu haystaa yuusanba ku filaanin sidaas daraaddeed nebigu ilaahay kama magangelin miskiinnimada laakiin wuxuu ka magangalay faqriga faqrigu marka dhibkiisuu leeyahay oo uma badna ruuxu inuu ku sabro dhankaasuuna ka imaanayaa mushkiladiisa iyo dhibkiisu markii ruuxu uu ku sabri kari waayo taa waa midda labaad ee xooluhu sidoodaba haddii addoonku fiican yahay xooluhuna fiican yihiin oo xoolo xalaala ay yihiin wax inay taraan mooyaane wax ma bi'iyaan sida nebigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu yidhi
nicma almaalu الصaalixu lilrajuli الصaalix waxaa nicmo lahaaday oo fiican xoolaha xalaasha ah oo nin ama ruux toosan oo fiican uu leeyahay sharti iyaguna waa inay xoolo saalixa yihiin oo fiican yihiin oo xalaal yihiin ruuxa gacantooda ay ku jirtana waa inuu yahay ruux saalixa oo isaguna suuban oo baari ilaahay u ah tabaaraka wa tacaala marka xooluhu waa ammaanan yihiin oo ceeb ma leh waana tii saxaabada qaar ka mida ridwaanullaahi calayhim waxay ahaan jireen rag xoolo badan leh oo tujaaray ahaayeen yacni islaamka ka hor iyo markay soo islaameen kadib rag xoolo badan baa jiray oo saxaabada nebiga ka mida sal alla alay wasalam ha ahaatee xoolahoodii iyaguna ka faa'iidaystay adduun iyo aakharaba dacwadii nebiga iyo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh towxiidka faafitaankiisana uga faa'iideeyey oo nebigu uu aada u ammaanay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh midda darani waxa weeye oo nebigu sal alla alay wasalam uu ilaahay ka magan galay waa inuu hamigaagu uu noqdo iyo walbahaarkaaga iyo murugtaadu dhammaanteed adduunyo inay noqoto qalbigaaga inay adduunyadu qabsataan la ogoleen iyo xoolaha oo nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ducadiisii waa tii ahayd yacni walaa tajcal iddunyaa akbara hammina walaa mablaqa cilmina ilaahuw murugtanada ugu weyn adduunyaha ka dhigin cilmiganagu meeshuu ku dhammaadana adduunyaha ka dhigin cilmigaagu meeshuu gaadhiyo garashadaadu adduunyo un hadday noqoto murugtaada ugu weynna adduunyo noqoto taas lama ogola laakiin adduunyadii waa shay aad ku qasban tahay oo xuquuq baa kugu tacalluqdo oo laftaadii waxaad u baahan tahay inaad kaaftoonto oo adduunkan waxaa loo baahan yahay in la camiro la hormariyo oo ilaahay tabaaraka wa tacaala intuu ka gebagabaynayo horumarintiisa iyo camiridiisa iyo waa shay bini aadamka u yaallo waay asbaab baa marka jirta shay walba ilaahay sabab buu u sameeyey xooluhu marna waa lagu siiyaa ayaga oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu wanaag kula rabo marna waa lagu siiyaa adiga oo la doonayo in lagugu ibtileeyo oo lagugu dhibaateeyo oo muxuu ahaaye imtixaankooda intaad ku dhacdo kadibna allah tabaaraka wa tacaala intaad isku halmaanto uu ka argoosto adoo ishalmaansan oo waa midda la yidhaahdo istidraaj allah tabaaraka wa tacaala fii suurati alancaam siduu ku sheegay muxuu ahaayey ummadaha rususha markuu usoo diro oo ay rususha beeniyaan waa la dhibaatayn dhibaato markii lagu qabto inay soo noqdaan baa la rabaa dhibaatadii hadday sii madax adaygaan oo dhibkii markii lagu qabto ay soo noqon waayaan oy xumaantii ku sii madax adaygaan allah tabaaraka wa tacaala markaa wuxuu kula dhaqmayaa sunno la yidhaahdo sunnatu listidraaj istidraajku waxa weeye waa lagu seeta dheeraynayaa meelaad ku ismoodayso in lagu jecel yahay yaa laguu samaynayaa waad ishalmaamaysaa maraad ishalmaansan tahay baa lagu qabanayaa waa midda rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay xataa idaa farixuu bima uutuu akhadnaahum bagtatan faidaa hum mublisuun wixii lagu waaniyey ee loo sheegay markay halmaameen oo waxba ku qaadan waayeen oo la keri waayey alla marka wuxuu rabaa inuu halago baabi'iyo see lagu baabi'inayaa fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay wax kasta iriddiisaa loo furay waa ka cirkii dhibicdiisii iyo roobkiisii waa loo furay dhulka wixii ku jiray ee macdan iyo barwaaqo iyo beero iyo wax balha baa loo furay fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay xataa idaa farixuu markay farxaan oo kibraan oo ay tamashleeyaan oo ay ishalmaamaan akhadnaahum bagtah waanu qabanaynaa buu rabbi yidhi waan qabannay si kada si lama filaana markaa loo qabanaya marka nicmaynta noocaasoo kale ah ee laguu furaya waxyaabahaas markaasi waa istidraaj oo waxaa la rabaa
oo rabbi tabaaraka wa tacaala uu qadaray in aad waxa isku halmaanto kadibna adoo ishalmaansan lagu soo qabto markaasoo sidaasoo kale la isugu nimceeyaa marna ilaahay tabaaraka wa tacaala nicamka addoommada wuxuu u siiyaa yacni imtixaan ahaan waa yihiin laakiin haddana istidraaj meehe waa addoon saalix oo fiican oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ogsoon yahay inuu waxan ka faa'iidaysanayo kana faa'iidaynayo isla markaana aakhiradiisa ayna dhib u geysanayn waxyaalo fara badan oo markaa asbaabaa jira oo qur-aanka iyo sunnada ku soo arooray oo keena in ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommada risiqa u waasiciyo waxaa ka mida oo sababta koowaad laga dhigi karaa aliimaan waltaqwa ama alistiqaama cala almanhaj cala alariiqa iimaan saxa iyo alla ka cabsi iimaan saxa iyo alla ka cabsi ama si kale haddii loo yidhaahdo iimaan iyo toosnaan dariiqa rabbi tabaaraka wa tacaala lagu tooso qur-aanku arrintaa rabbi ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala markii laga soo sheekeeyey mujtamacaad badan oo horay adduunka u soo maray oo allah tabaaraka wa tacaala intuu rusul u diray rusushoodii diiday oo beeniyey kadibna alla uu halaagay tabaaraka wa tacaala markii laga soo sheekeeyo sheekooyinkooda la soo dhammeeyey ayaa allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi walow ana ahla alquraa aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaatin min alsamaa'i waalard walaakin kadabuu faakhadnaahum bima kaanuu yaksibuun magaalooyinka iyo dadkaa laga soo sheekeeyey mujtamacaadkaa laga soo warramay degmooyinka iyo deegaamadaasi hadday iimaan iyo alla ka cabsi isku dari lahaayeen iimaan iyo alla ka cabsi hadday isku dari lahaayeen alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala waxaan u furi lahayn barakaadka samada iyo barakaadka dhulkaan u furi lahayn yacni waxa weeyaan dhulka khasnadihiisa iyo samada khasnadaheeduba waxay ku jiraan ilaahay gacantiisa furahooduna waxa weeye siday aayaddu tilmaamayso lagu furtaay waa iimaan iyo alla ka cabsi aliimaan waltaqwa labadaasay tilmaantay wuxuu rabbi tabaaraka wa tacaala ka dambaysiiyey walaakin kadabuu way beeniyeen meeshii iimaan laga rabay way beeniyeen meeshii alla ka cabsi laga rabayna waa diideen toosnaantii waa lagu kari waaye fa akhadnaahum bima kaanuu yaksibuun waxaa keenay in la baabi'iyo la halaagoo la rogaayey waxay iyagu kasbadeen unbuu ah haddayse laakiin ay iimaan iyo alla ka cabsi la imaan lahaayeen waana la dayn lahaayoo lama halaageen noloshana waa loo furi lahaa dhulka waxaa ku jira o dhan waa loo soo saari lahaa samada barakaadkeedana ilahay waa u furi lahaa tabaaraka wa tacaala wakadalika fi suurati اljin allah tabaaraka wa tacaala waa ku tilmaamay waan low istaqaamuu cala ariiqati laasqaynaahum maaan gadaqa linaftinahum fiih hadday dariiqada ku toosi lahaayeen jidka alla hadday ku toosi lahaayeen oy laalaabka iyo qallooca iska dayn lahaayeen allah wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala waxaan waraabin lahayn la asqaynaahum maaan gadaqan roob dhibco waaweyn roob aada u fara badan baa la siin lahaa roobka samada ka imaanayaay asal wuxuu u yahay barwaaqada leanna dhibicdaas samada hadduu ilaahay addoommada u furo dhulkuna wixii ku jiray waa soo saaraya sidaas daraaddeed dhibicdu waxay ku imaan lahayd baa layidhi hadday dariiqa ku toosi lahaayeen laakiin waxaa la daba dhigay siinta la siinayaay ma aha jacayl ee linaftinahum waaye haddana barwaaqadii baa laysku imtixaani ilaan waxa weeye barwaaqadana waa lagu imtixaanan yahay nicmaduna waa imtixaan niqmaduna waa imtixaan sharkuna waa imtixaan khayrkuna waa imtixaan wabalownaahum bilxasanaati wasayi'aat yacni wixii dhib kugu ana waa imtixaan wixii dheefee lagu siiyana waa imtixaan linabluwahum aayadahaasi marka waxay tilmaameen asbaabta risiqa lagu helo waxaa ka mida ruuxu inuu dariiqa alla ku tooso
hadduu mujtamac yahayna mujtamacaasi inuu iimaan iyo alla ka cabsi la yimaado dariiqa rabbi qabsado marka ilaahay tabaaraka wa tacaala risqa waa u waasicinaya waxaa ka mid ah asbaabta oo qodobka labaad laga dhigi karaa in uu ruuxu badiyo istighfaarta iyo dembi dhaaf weydiisiga allah tabaaraka wa tacaala inay carabkaaga ku badato istighfaartu يعني أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله كلما أدونك أو بديو استغفارتا يا الذين بدافع ويديسك أو بديو إلهي تبارك وتعالى وحو أفريا رزق واسع أفريا الرداء وسنفيلين بربي أفريا تبارك وتعالى يعني واكا دور من القرآن الكريم كقصة أرورتي نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في سورة نوح waxa uu qowmkiisa ku yiri wuxuu yiri faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara markuu rabbigi tabaaraka wa ta'ala u sheegay wuxuu qowmkiisa kala kulmay nabi nuux wuxuu yiri ربي وحان كو إري وان قوم كيجي أشيغي استغفروا ربكم الليهين دم بداف ويديستا فقلت استغفروا الله دم بداف ويديستا إنه كان غفارا من دافد بدن ويدين دافي ورصدا ويديستا إنو إدين داف حداد ويديستان الله ونود دم بداف تراهدان ودوصو نقطان يرسل السماء عليكم مدرارا سمدو الله إذين فصيح أو إذين دري أو إذين إدمي أيضو دررسن يعني يضو دبيعدو أين كلا قولها إنو إسدبت شوكتو أيها سمد الله إذين فصيح ويمددكم بأموال وبنين هذه سمد الله إذين فصحين الله وحو إذين سيادين يا حوله إيه ويلل هواتر ميسان haddii ba dhibicdii rabbi idin siiyay xoolihiina waa idin badanaya hadday beer dhulka soo go'do tahay hadday xoolihii noolaayay dhulka daaqay yihiin haddii ay nooc kale yihiin xoolihii waa idin badanaya haddii xoolihii idin badana waa tarmaysaan oo caruur badanna waa dhalaysaan oo yamdidkum bi amwaalin wa baniin wayaj'al lakum jannatin wayaj'al lakum anhara wuxuu alla idin yeelayaa aseendooyin beero waaweyn waxaa kaloo idin yeelaya yani wabiyaal durduraya ilo biya oo durdurayo go'aynina waa la idin siinaya waxa soo dhan muxuu idin kaga xidhan yahay wuxuu idin kaga xidhan yahay istaghfiru alla dambi dhaaf weydiista allah hadda dambi dhaaf weydiisataan intaaba uu idin siin rabbi yow qowmkaygi saasan ku idhi buu nabi ilaahi nuux alayhi wa ala nabiyina salatu wassalaam marka yani waxa ka muuqata استغفارتا نتيجة وحوي وسعة الرزق واحد إلهي تبارك وتعالى إنه إرد برن أضمد أفر وحبضا واسعيه استغفار تاسيكو إيمانيس وكذلك النبي الله هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سيدوك لا إساقنا قوم كي سمركوا لها اللي كما في سورة هود وحيري ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قوم كيجي ويري ربي جين دم بداف ويديستا ونصون نقضة السجع هذا سيدا يشان يرسل السماء عليكم مدرارا صمدي بو الله إذين صدري أيضا أو دررسن أيضا استبتشوف تدبيع لي أون كلا قولها بو إذين سين ويزيدكم قوة إلى قوتكم wuxuu idin siyaadinayaa xooggiinii hore la idinku darayo laana wax weeyaan waa la xoogaysan oo xoogga macnawiga iyo midka xissiga ah wuxuu ku jiraa nicmo in la helo dadkii jidkoodii baa xoogaysan oo muxuu ahaayay noloshoodii baa xoogaysan oo dhismahoodii baa xoogaysan oo horumarkii baa xoogaysan oo waa xoogaysanaysan xooggiinii buu xoog idinku dari awooddiinii toraatu kale la idinku daraya لكن maxay idin kaga xidhan tahay waxa way istaghfiru rabbakum thumma tuubu ilayhi
dembi dhaaf weydiista una soo noqda isla suuratu huud bilowgeeda ayaa macnahaasoo kale iyadana lagu tilmaamay oo rabbi wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala waan istakfiruu rabbakum ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى والإلهي دمبداف ربي دمبداف ويديستو أصو نقضة الله تبارك وتعالى وحو إذين راحين يا أو إذين نعمين يا راحين وناكسن إلى وقت لقى قاري إلى أجل مسمى إلى مدة إلهي أكتس كما عاما لقى قاري والله إذين راحين مدة سوى مدة عمرقين نكوئي ilaa muddadii intaad nolol laydinku talagalay dhibkana waa laydinka ilaalin waxaad rabtaanna waa laydin siinaya laakiin maxaa laydinka rabaa qodobka xaqiijiya ilaahay u soo noqda dambi dhaafna weydiista meelaha iyo meelo kala mid ah ayuu quraanku ku tilmaamayaa asbaabta risqa keena sicadiisa oo ilaahay ku waasiciyo tabaaraka wa tacaala ama shakhsiga fardiga ha noqdo ama mujtamaca ha noqdo يعني وحوي الدجانك يوم حو هاي بلشة جود أما سخاصة بها النقطة روح جوني أهانتيسة إلهي الله النقطة دم بدافع لو يدستول لبديو أيضا أسباب توحي كم تهاي رزق واسع وحكم إذا أسباب أيضا قضب قصد حال غير كنا التوكل على الله إلهي تبارك وتعالى إن تلسارته ربي قال تبارك وتعالى إن تلسارته ومعناه ذوي هي توكلك waxa la yiraahdaa in aad la timaado asbaabtii iyo dadaalki natiijada dadaalkaaga iyo midhahaad ka rabtana aad ogaado ilaahay gacantiisa inuu ku jiro kaalmaysato labada inaad isku darto haddaadan sababta la imaanin ilaahay maadan tala saaran haddaad sababtaada uun istiraahdo ayadaa wax keenaysana ayadana tala saarasho ma ah laba arrimood isku dar talada iyo natiijada iyo midhaha ilaahay u daa ma ku siin doonaa mise kuma siin doona hawl isaga u taalla waay sidaa ictiqaadi kuna talagal wixii sabab isagu uu ku siiyey kuna fasaxay kuna sheegay inaad ku gaadhi karto shayganna iyo maqsuudkana sababtii la imo oo dadaalkii la imo tawakkulka sidiisa macnaha la yiraahdo ala xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam oo ku qeexay oo aqilha wa tawakkal ala allah haddaad muxuu ahaayay hasha dabarka ka sideys oo xariga ka furto oo tiraada ilaahay baa ii ilaalinaya allah hasha ilaali dabarkiina waad ka furtay tala saarasho ma haddaad un tidhaahdo mar haddaan xidhay oon dabray oon lugta ka xidhay xadhiggaasi qasab wuu ilaalina ayadana tala saarasho ma laakiin hasha dabar allana u tala saaro xadhiggaasi inuu kuu haynayo oo kuu xifdinayo allay la jirtaa sababtii la imow natiijadana alla u daa wuxuu kaa siiyana raalli ku noqo haddaad tala saarashada noocaasa la timaado ilaahay tabaaraka wa tacaala risqa waa kuu furayaa waxaana laga qaadanayaa xadiidu cumar oo uu soo saaray imaamu axmed tirmidi ibnu maajah iyo xaakim xadiis saxiixa waa oo nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh low annakum tawakkaluuna cala allah wafii lafdin tatawakkaluuna cala allah حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا هداد إلهي أطل سارا لهيدين أو تلد أقول ليبا لهيدين سيدا الشنبروه أطل سارتان وكاليت تلا سارة شرط أبقى أو حقيقي أو شك كتيرين هداد إلهي تلد أقول ليبا لهيدين سيدا الشنبروه وكاليت الله هو إذن إرزاقي لها سيدا شمبرها أو إرزاقه كالت شمبروه محي سميان تغدو خماصا الصباح دي بيك الله ذا شمبرته أيضا أو بقلالا أو قاتشيسا أو علوشي دبركو اسكو دقين أي الصباح ظهوري يكعدا قلبتينا وحي صون نقطها أيضا أو دركسن أو كليهم فيدين أو علول وين صور دركتبي صون نقطها
xaggay wax u yaaleen ilaahay agtiisay wax u yaaleen laanna allah tabaaraka wa tacaala baa wuxuu damaano qaaday wamaa min daabbatin ilaa cala allaahi risquhaa naflay nool ma jirto ama ha duusho ama dhulka korkiisa ha ku socoto ilaa ilaahay baa risiqeeda damaano qaaday intaan la abuurin baa risiqeeda la sii meeleeyey iyo waxay ku noolaan lahayd mar hadday meelaysan tahay sababtiina la imow oo sacyigii iyo dadaalkii la imow oo ha seexanin lianna asamaa laa tumtiru dahaban samadu dahab ma dhasho samadu dahab ma keento iskama keento samadu dhibic bay keentaa dhulkii in lagu fasho dadaal lagu bixiyay u baahanta marka inaad dadaal bixiso allana aad tala saarato tabaaraka wa tacaala saasaad u baahanta haddii aad sidaasoo kale u tala saaratana kolley wuu ku irsaaqi kolley irsaaqadaada ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa ka waayi maysa bal xadiis baa nabiga ka sugan sal alla alay wasalam uu leeyahay haddii midkiin uu risiqa ka cararo risiqii ilaahay u qoray hadduu xataa ka cararo asagaa ku eryani sida aydaan geerida uga fakan karin baydaan risiqiinnana uga fakan karin aynamaa takuunuu yudriku lmowtu sooma walow kuntum fii buruujin mushayada meel aad gasho ood geeri kaga fakan karto ma jirto meel aad gashood risiqaaga kaga fakan karana ma jirto meeshaad ku jirtaba waa kuugu imaanaya wixii ilaahay kuu qoray tabaaraka wa tacala ma seegaysa marka ku talagal sacyigii la imow beertii falo warshadii u kala dukaankii furo baabuurkii muxuu ahaay rar wahaakada shaqogal laakiin waxaad ogaataa shaqadaada natiijadeediiyo waxaad rabto allaha gacantiisay ku jirtaa ku kalsoonow isaga talada u daa wuxuu ku siiyana alxamdulilah sidaa haddaad yeesho wixii ilaahay ku siiyaba tabaaraka wa tacaala waana kuu barakaysan yihiin waxayna u badan tahay inuu ilaahay risiq waasaca ku siiyo tabaaraka wa tacaala waxaa ka mid a oo qayb ka mid oo la dhihi karaa waa qodobka afraad laga dhigi karaa oo sacyiga ka mid a bukuurku waxa weye waa kallahaadda subaxdii inaad kallahdo markaad intaad qur-aanka akhrisato salaada subax tukato juskaaga qur-aanka akhrisato adkaartaada akhrisato subaxdii shaqo tag kallahaad ku dhufo ama beer u kallah ama warshad ama xamaal ama dukaan u kallah kallahaadaasaa baraka ku jirta waxyaalaha risiqa waasiciyeyna ka mid tahay waxaa laga qaadanayaa xadiidka sakhrin alghaamidi oo uu soo saaray axmed iyo arbacadu ay soo saareen nebigu wuxuu yihi sal alla alay wasalam allahuma baarik liummatii fii bukuuriha ilaahu ummadayda waxaad u barakaysaa kallahaadeeda nebiga ducadiisa waa maqbuul soo ma ilaahu ummadayda kallahaadda u barakee buu nebigu sal alla alay wasalam kallahaaddu marka way barakaysantah subaxdii inaad kallahdo shaqo tagto way barakaysantah lafdiga kalaa jiro tabaraani uu soo saaray fi lawsat min xadiidi abi hurayra oo sheekh albani caleyh raxmat ullahi uu saxiixinayo wuxuu nebigu yihi sal alla alay wasalam buurika liummatii fii bukuuriha lafdiga hore waa duco lafdigan dambena waa khabar lafdiga hore waxa weeyaan allaahuma baarik lafdigan dambena buurika waa loo barakeeyey waay waaba dhacdayba buurika waxaa loo barakeeyey liummatii fii bukuurihaa kallahaadeeda kallahaadaasi marka way barakaysantah sidaas daraaddeed xadiidka hore ee tawakulka aan kaga hadlaynay lafdigiisu waa ka nebigu markuu ka hadlayay shimbiraha muxuu yidhi taqduu khimaasan way kallahdaa soo ma jeed way kallahdaa ayadoo oo gaajaysan adiga arka shimbiraha mar alla markii muxuu ahaayey iftiinkuba soo baxaba oo waagu baryo iftiinkaba la helo shimbirihii waa kaa kaceen waa dulduulahayaanoo risiq bay raadsanayeenoo yacni hurdo kumay noqon waa ka leheen waa kaceen marka kallahaaddaasi sideeday u barakaysan tahay waxyaalaha risiqa waasaca lagu gaadho ayayna ka mid tahay sida xadiidka nebiga laga faa'iidaysanayo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa ka mid ah asbaabtaasoo sababka shanaad laga dhigi karaa xifdu lmaal can ilxaraam wa khaasatan aw laa siyama can ilriba
xoolaha inaad ka ilaaliso xaaraanta khaasatan inaad ka ilaaliso ribada kasabka haddaadan dhowrin oo aad sidii xalay aan ka hadlayna xadiidkii kun warican takun acbada annaas aadan xalaal miirashada ku dadaalin oodan xaaraanta ka ilaalin xoolahaaga xaaraantaasi waxay sababi kartaa in ay xoolihii baabi'iso waxaa kaloo sababi kartaa inay risiqa kugu cidhiidhido oo lagugu imtixaano intii aad haysatayna way tirtiri in kalena waxaa laga yaabaa in lagu siiyo in ay adkaato oo ilaahay xaggiisa aan lagaa siinin lianna macaasida iyo dunuubta midhaha ka dhashiya aahaarteeday ka mid tahay oy ka mid noqon karaysaa macnaha khaasatan weliba si gooniya ribada allah tabaaraka wa tacaala fi lqur'aani alkariim ayuu ku tilmaamay oo ku sheegay ribadu inay baaba'ayso inuu baabi'inayo allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi yamxaqu allahu alriba wa yurbi asadaqaat wallahu laa yuxibu kulla kafaarin ahiim allah tabaaraka wa tacaala ribada waa tirtiraa sadaqadana waa barbaariyaa waa kobciyaa waa siyaadiyaa aayadda kale ka sii dambaysana muxuu ahay bacda aayatayn imaanaysana rabbi waa ka yidhi tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allah wadaruu maa baqiya min alriba in kuntum mu'miniin war alla ka baqa haddaad mu'miniin tihiin alla ka baqa ribada intii horey aada u qaadateen mooye inta hadhayna iska daaya yacni markay aayaddu soo degaysa aayaadka ribada xarimaya intii ka horreysay mujtamacu wuu ku mucaamaloonayay ribada oo islaamka ka hor baa mujtamacu ku mucaamaloonay jaahiliyadii baa la yaqaano lagu mucaamaloonay reer madiina yahuuddii madiine soo degtay baa keentay la yidhahdaan yahuuddii madiine soo degtay qabaa'ishii madiine soo degay ayaa asalka ribada keenay bay yidhaahdaan waxay ahayd mucaamalo lagu mucaamaloodo marka qur-aanku marka wuxuu ribada xaaraameeyey iyadoo ay jirto heshiisyo la galay iyo wax la kala iibsaday oo ribo ah welina aan wixii la kala qaadanin allah tabaaraka wa tacaala middaa way miduu leeyahay wixii aada horay u kala qaadateen asaga waa tegey waa suuq ku tegey laakiin wixii isugu kiin laaban ribada ha qaadaninoo inta hadhay ka taga maxaad qaadani raasamaalkaagii qaado in tubtum falakum ru'uusu amwaalikum wixii raasamaalkaaga ahaa qaado siyaadadana ka taga intan dulsaarka aada saarteen daaya haddaad mu'miniin tihiin haddaad yeeli weydaan soo maha ood ribada qaadataan fain lam tafcaluu fa'danuu bixarbin min allahi wa rasuulihi wa haddaad yeeli weydaan ood ribada ku dhaqantaan ood cuntaan ood qaadataan ood ku mucaamalootaan waxaad ogaataan ood ku tala gashaan dagaal alle iyo rasuulkii allah tabaaraka wa tacaala waa idinla dagaalamaya oo dagaal alle tabaaraka wa tacaala xaggee buu kaa geli doonaa waay xoolaha laftooduu kaa geli oo diintiibuu kaa geli aakhiradaadiibuu kaa geli oo ilmihii iyo gurigiibuu kaa geli oo caafimaadkiibuu kaa geli oo meel kastaa lagaala dagaalami ma ilaahay dagaalkiisa meeluu kaaga imaan doonaad garanaysa allah tabaaraka wa tacaala markuu ku maago meeluu kaa soo geli doono garan maysa xataa waad xataa muxuu ahaaye taxadar wax tari lahaa meel xataa lagaaga imaan doono ma taqaanid allah tabaaraka wa tacaala marka wuu kula dagaalami hadduu kula dagaalamana xoolaha waa lagaa baabi'in yamxaqu allahu ribaa waa tirtiraysaa saas daraaddeed xoolo ay gashay akhiiran marka dambe waxaa laga yaabaa marka hore inay yani ay ku bulbuliso xoogaa inay kor kuu qaado min baabi alistidraaj yani wax weeye waxoogaa ay ku tusto inaad wax heshay faa'iido ku dhufatay xoogaa noolaatay laakiin nebigu wuxuu yihi sal alla alay wasalam ribo kasta iyo xaaraan kasta marka hore haba badatee akhiiran yaraan bay ku dambayn buu nebi uri sal alla alay wasalam waa ficlan saas waa ficlan saas waa
sirta in hadda adduunka dhaqaalihiisu burburo oo la qasmo oo reer galbeed ilaa iyo hadda ay u maari la'yihiin dhaqaalihii xukuumadaha ha la dhimo shaqaalo fara badan shaqada ha laga fadhiisiiyo dowladdu ha kabto khubaraha loo fadhiisiiyo daraasaad ha laga diyaariyo waxba waa laga qaban lahay sirtu maxay tahay sirtu waxa weeye yamxaqullahu riba waay dhaqaalaha adduunka reer galbeedka iyo reer bariguba wuxuu ku salaysan yahay calaa asaasi ribada iyo siyaadada iyo dulsaarku ku salaysan yahay waxoogaa marka waa la bulaaliyey waa la daayey waa la yara istidraaj baa lagu sameeyey rabbi tabaaraka wa tacaala waqtigeedii markii la gaadhayna yamxaqullahu riba baa haysata ribada ilaahay waa tirtiraya tabaaraka wa tacaala dad badan baa jiray rag fara badan oo tujaara jiray oo dhaqaalo badnaa oo waddankan la yaqaano oo xoolo badnaan jiray xoolahooduna inta badan ribo iyo bangiyo iyo dayme iyo ka kasbaday akhiiran in badanoo ka mid ah oo la garanayo waxay ku dambeeyeen ayagiioo duqoobay oo jidh ahaan baaba'ay qaarkood dhinteen hantidoodii faraha badnaydna markii dambe bangiyo unbaa wada xaraashta khalaas yamxaqullahu riba waay haddii xoolihii aadan marka xaaraamta ka dhowrin xoolahani ma jirayaan haddaad marka horeba kasabkaaga aadan xaaraamta ka ilaalininna haddii lagu siiyana waa cadaab haddii lagaa qadiyana waa cadaab iyo dembi allah tabaaraka wa tacaala munaafiqiinta markuu ka hadlayo waa ka yidhi يعني وحوي في سورة التوبة كتل ما بي الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليعذبهم بها فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وحبا حوله دي عرورته دي يسنكو عجبين بين النبي صلى الله عليه وسلم حوله دي عرورته دي وحبا هؤلاء يابه وبوغين وحبا ينكو عجبين هؤلاء يابه alla wuxuu doonayaa inuu ku cadaabo xoolahooda iyo caruurtooda adduunka inuu ku cadaabo oo ku kadeedmaan oo ku rafaadaan kadibna naftu inay ka baxdo iyagoo gaala ah silicna inay naftu kaga baxday khaatumo xumo intay joogaanna inaysan ku degin oo ku xasilin oo lagu ciqaabo oo lagu cadaabo allah tabaaraka wa tacaala taasuu doonayaa buu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala marka يعني وحويان مركا waxay u baahan tahay in ruuxu uu xoolihiisa haduu rabo in loo waasiciyo loo barakeeyo uu ku dago uu ku xasilo waa inuu ka ilaaliyo xaraamta ka ilaaliyo khaasatan ribada waa inuu ka fogaado oo aad iyo aad uga durkaa loo baahan yahay macna maalko marka laga xifdiyo xaraanta laga xifdiyo waxyaalaha keenay kamid tahay sacatu rizqi waxa kamid oo sababka lixaada oo keeni karaya nicmada ilaahay ku siiyay iyo xooluhu ku siiyay inaad ka shukrido markii ilaahay ku siiyay tabaaraka wa tacaala in aad ka shukrido shukrigu wuxuu noqonayaa saddex i'tiraafu alqalb iyo shukru lisaan iyo xoolahaas in aad u isticmaasho meeshii ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu talagalay shukrigu saddexdu way soo galayaan qalbiga horta inaad ka ictiraafto ood ka qirto ilaahay baa ku siiyey waxan shukriga qalbigu waa ka waa ictiraafka waa qiraalka aad qirto waxan xoogna maadan ku keenin xeeladna maadan ku keenin cilmi iyo caqli kaana maadan ku keenin kuwa kaa cilmi badan oo kaa caqli badan oo kaa xoog badan oo kaa aqoon badan baana haysanin maxaa lagugu siiyey bifadlillah ilaahay baa ku siiyey tabaaraka wa tacaala rabbi baa kuu qoray isagaa ku siiyey inaad horta u qirta nicmadan ilaahay baa leh qir ictiraaf waa midda labaade waa inaad afka kaga shukrido oo tidhaahdo alxamdu lilah ilaahay tabaaraka wa tacaala intaasuba raalli kaaga noqonayaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam
الله تبارك وتعالى أدونك وحو كغرى للنقضة أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة ثم يحمده إنه عنطعنه عبتان عبه كدبنا أويل هذا الحمد لله إلهي الرالي مبكر نقضي بعضهم كاس شكرين تمرك إن العرب كنا كالشكر دو شكرين تقيبت هذا الصدحادي وحوي حولها هو استعمال ميشون ميلوسن الله الرالي كأهي مركا أدون شكرية باتا حلاشة إلهي كوفة صحي حقوق ذا كسارا المهاجي الريرهاجة آخر هذا دين هذا كقرب استاك الرديه ربي فصحي يماله كب حلو جيري حولها نو استعمال صدح ذا هدي لجاهل حولها فتنة ضوات كباب دادي وأن الشكر دي شكري جا مركز لطي ما دنا إلهي تبارك وتعالى وكوسي هذيني الله تبارك وتعالى وكقرآن كإنه شيء لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد هذا الشكر ذان أو حقاقي اللي الله أوجا الشكر ذو والوجو كردين ما أنت مركي وحقاق بيل كاجه هشوا وقدد هذا هش هذا الحمد لله ترى إن كلا لوجو قدري لكن هذه وحقاقي اللي أتكع على عشر وعلى شيء الشيء محو هاي تكبح ويدو اللي يكسيب أتجرو ويدو هذا محاك سوقي مرك حضر طما يو حق الكلا لوجو دراسته أنت هرابط كوها اللوضي أنت هري اللي يكسيب وتكوها اللوضي هذه حتى مركا لوجسيه واستدراج يون أرين لوجسي عقابة يمركا نقنس مركا وحال الروا الله تبارك وتعالى وحو كسيه شكري وكو كردين لا أزيدنكم ولا إن كفرتم كفرا وحال جودا وأكيد ضد الشكر إن يعني النعمة دي آذن كالشكر نواه هذا النعمة دي كالشكرين الله وحو تبارك وتعالى إن عذابي لشديد عقاب تيدو مركا وأدك تهيوه لقد موضع آخر كليا لقو عقابي عقوبة الدنيا دنا وأوسو دقدي كرتا وحوله لفتو ذي كل عكرتا وأديك يكون عكرتا ودين تاذي يكون عكرتا وعروب تاذي يكون عكرتا يقولي كاك وحي بانت مركا إن آد نعمة ألا كسيه كالشكر دو لأنه والقوي دين وليستقد بإيمان ثم لتسألن يومئذ عن النعيم نبي صلوات ربي وسلام عليه هبين هذا كم إذا أيو جورجي سنتو قاتش شوجوا أيو جورجي كصباح سقوا قاتش الله صعد أيا واحد جيتك كوكل من أبو بكر وأسجن أنتو قاتش الله شوجوا إسكسر صعد labadoodii wada socdaa haddana waxay la kulmeen Abu Bakar Umar oo asagana gaajal la joog waayo isaguna socdo waa saddexdii ummadda ugu fadli badnaa way israaceen oo nin saxaabiga gurigii bay tageen gurigii haday tageen ninkii guriga lahaayo gurigii ka maqan bay tageen xaaskiisii baa soo dhawayso way fadhiisisay way weydiiyeen waxay ku yiraahdeen hebel aawe hebel waa maqan yahay buu yiri ku tiriyo xogaa dan buu aaday oo imaanayaa fadhiist gol bay u dhintay way fadhiis ninkii kor buu ka yimid markaas wuxuu yiri almaanta yaaba iga martay fiican ba maanta yaaba iga martay fiican nabi maxamed iyo labadiisii saaxiiba guriga ii fadhiya wuxuu heli karay buu soo diyaariyay wala cunteeyay markii la cunteeyay kadib uu nabigu wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi gaaja intay idin soo saartay ayaa ilaahay nicmadan idin siiyay sooma aha Umar iyo Abu Bakar ila aad gaajadii ka baxdeen oo dirigteen wallahi wala idin weydiin doonaa buu thumma la tus'alunna yawma idin 'anil na'im labada nin ee gaajada la joogi waayay ee gaajadu soo bixisay waxooga ay caloosha geliyaan helay hadii lagaga daba imaanahay waxayna ka warrama marka hawlaheena isa saaran ka warrama hawlaheena isa saaran wax saalan ba marka waxan waa la isaga daba imaan doonaa nicmayso
barwaaqayso labiso cun dhiso laakiin allaha ku siiya tabaaraka wa tacaala ku shukrigaas ha ka tegin halmaami waxaa ka mid ah asbaabta risiqa waasicisa shukrigana qayb ka ah xoolaha markii ilaahay ku siiya tabaaraka wa tacaala inaad bixiso sadaqayso infaaqiso gacantaadu furnaato masaakiinta socotada muxuu ahaayey dadka danleyda ee baahan diinta iyo baahideeda gacantaada fur haddii aad gacantaada furto allana gacantuu kuu furaya haddaad waxoogaagii ku soo galay aad tidhaahdo muxuu alxuquuqu kaiira anigaba igama badnana hadda waxa weeye waa lagaa ceshanaya waa lagaa ceshan risiqa marka waxaa waasiciya waxaa ka mida inay sadaqadaadu badato waa cagsi ictiqaadka dadku say ictiqaadsan yihiin cagskeeda waay dad badani waxaa ka dhaadhacsan waxoogaaga ku soo galay haddaad wax ka bixiso hadde wax weeyaan muxuu ahaayey xaggeed wax ka heli intani anigaba igama badnayn haddayna kaa badnayn in kaa badan baa lagu raadiyaa waxoogaa ka mida inta la bixiyo risiqa haddii lagugu cidhiidhiyo waxaa lagu furfuraa waxaa lagu siiyey baa wax laga bixiyaa waa furfurmaya markaa nusuus aad u fara badan baa kutusaysa qur-aanka iyo sunnada ka mid waxaa ka mid ah xadiidka abi kabsha alanmari oo uu soo saaray axmed iyo tirmidi oo saxiixa ah oo nebigu yuri sal lla alay wasalam halaathun uqsimu calayhinna saddex arrimood waan ku dhaaran buu nebigu sal lla alay slam siday xaqiiqo u yihiin shaki ugu jira waxaa ka mid ah saddexdaa iyada ah maa naqasa maalu cabdin min sadaqa arrinta koobaadeen ku dhaaran een shakigu ku jirin waxa weeye addoon xoolihiisu sadaqa darteed uu bixiyey uma nusqaamaan sadaqa aada bixisood ilaahay darteed u bixisa yaa xoolahaaga nusqaaminaya waa sheeko shaydaan waayo ashaydaanu yacidukum alfaqra soo maa shaydaan baa ina leh waxoogaagan haddaad bixiso wax heli maysid ama waa isdhimayaan xoolihii wallaahu yacidukum makfiratan minhu wa fadla allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ina leeyahay xoolahan haddaad bixisaan beddelkeedaan idin siin adduuniya aakharaba aakhare keliya ma aha xataa adduunkii baa beddelka laysa siinaya idan maa naqasa maalu cabdin min sadaqa waa qodobka koobaad walaa dulima cabdun madlamatan sabra calayha ilaa zaadahu allahu caza wajalla cizan qodobka labaad ee nebigu uu ku dhaartay waxa weeye addoon la dulmiyey addoon lama dulmiyo oo dulmigii iyo gardarradii lagu sameeyey uu ku sabro ilaa hadduu sidaa yeelo ilaahay wuxuu u kordhiyaa cizi iyo sharaf buu u kordhiyaa haddii inta lagu gardaraysto lagugu xadgudbo ood ciddii dhibka kugu samaysay ilaahay dartii isaga cafido adiga waxay kula tahay oo naftaadiiyo shaytaan ku leeyihiin muxuu ahaayey aargooso wax iska celi waaba lagu dullaystay halaq mareen baabad noqotay waaba nin kastaaba iska kaa maraya ha lagaa boqo dadka meel iska mari naftaadiiyo shaytaanku waxay ku leedahay haddaadan wax iska celin waa dulloobi soo saas ma laakiin nebigu wuxuu ku dhaaranayaa haddaad inta lagu dulmiyo aada iska cafidood saamaxdo allah tabaaraka wa tacaala cizi iyo sharaf buu kuu kordhinaya meeshaad adigu isleedaha waa dulloobaysaa ilaahay cizi buu kaaga kordhinaya qodobka saddexaad ee nebigu ku dhaartay waxa weeye salawaatu rabbi wasalaamu calayh walaa fataxa cabdun baaba mas'alatin ilaa fataxa allahu calayhi baaba faqrin addoon ma furo irid dawarsi iyo waxweydiisi iyo shaxaad iskuma furo ilaa hadduu furo ilaahay wuxuu ku furaa baab faqri buu ku furaa haddii shaqo ka dhigato inaad dadka wax warsato
ma shaqaysatid ma xamaalatid inaad dhidida ma rabtid waxaad rabtaa inaad gacanta horsato adu wax badsaad isleed wax korsaad faqri iyo baahi in lagu furo mooye waxba ku dhigmi maayaan waxbana kaaga suuroobi maayaan saas daraadeed way yar tahay inaad aragto ruux shaxaad iyo dawarsi shaqo ka dhigto ku taajiray adu waliga maarta baahidiisu waa sii badanaysaa balaayo baa ku sii furmaysa ma ku taajiraysa saas macna saas daraadeed bay shariicadu xarimtay wajigan qiimaha badan bini aadan looma duleeyo wajigan qiimaha badan Allah baa loo duleeyaa laakiin bini aadan looma duleeyo waa la kaaftooma sidaan muxaadaradii xalayba kaga hadalay shariicadu waxay ku leedahay kaaftoon isku kalsoonow shaqayso wax la soo bax xataa shaqooyin hoose qabo isqulo qod xaabada soo gur dhuxusha iibi noolow bini aadamkana ka kaafto ruux akhyaar oo qiimo leh waa tahay laakiin maalinkaad gacanta horsato dawarsato ilaahay tabaaraka wa tacaala faqri aan dhamaanaynin buu kugu ibtilaynaya saddexda arrimoodba nabigeena waa ku dhaartay salawaatu rabbi wasalaamu calayh qasadkeenuna waxa weeye sadaqadu xoolaha ma dhinto bal ilaahay tabaaraka wa tacaala waa ku siyaadiyaa xadiidu abi hurayra ku tusaya bukhari muslim ay soo saareen nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilan ma jirto subax ama maalin dadka waagu u bariyo illa hadii uu jiro laba malag baa soo daga maalin kasta midkood wuxuu leeyahay allahumma a'ti munfiqan khalafa ilahu ruuhi wax bixiyay badal si midka labaadna wuxuu leeyahay allahumma a'ti mumsikan talafa ilahu midka cishaday oo kaydsaday oo aan bixinaynin baabasi ka tirtir allow midna waa habaarayaayo bakhaylku habaaraya midna wuxuu u ducaynayaa deeqsiga gacanta furan buu u ducaynaya malaa'ikta ducadooduna waa maqbuul sidaas daraadeed nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu calayhi asmaa binti abi bakr wuxuu ku yiri waxay ku tiri rasuulka ilaahay gurigayga waxa uu yaala wax uu keenay ninkayga Zubayr macawaan baa qabay asmaa binti abi bakr ninkayga Zubayr wuxuu keenay baa guriga yaala waa wuxuu biil ugu tala galay ma ka sadaqeeya ma bixiya مساكين توح مكسية نبي وحكوري صلى الله عليه وسلم يا أسماء أنفقي ينفق عليك ابن صلى الله عليه وسلم بحي هداد بحي سوال قسين لا توكي فيوكا عليك هننجحن هداد ننجح ولا ننجحي ويكاغا وحلي هذا liilanka afka lagaga xiro sibraarka iyo waxyaalaha la midka waa bimaana waxa laga wada hadaboolin hadaad daboosho waa laga daboolana ha celinin hadaad celiso waa laga ceshana sooma laana kama tadinu tudan saadu dhaqantoon baa lagu la dhaqmi sooma saas daraadeed baa salafkii waxay ahaan jireen ragga qaarkood dabeecad waxa uu ahaan jirtay haduuba waagu u bariyo asagoon wax sadaqaysanin ma soo noqon jirin dabeecad aad u qiimo badan waa ruuxi heli kara hatta ha noqoto wax yarna ha noqoto maalmaha kamida waxa dhacday dabeecadaas uu lahaan jiray iyo caadadaas iyo dhaqanka markaasuu gurigiisa maalin wuxuu ka waayayba wax miskiin la siiyaba wax miskiin uu gacanta ugu taagaba waa ka waayay guriga markaasuu gurigi wuxuu ka helay basashii marka faraqa ku soo gurtay markaasuu masaajidka la soo aaday miskiinkii uu masaajidka agtiisa ka raadinaya ninba arko wuxuu yiri war hebelow warniyo maxay tahay basashan farqaha kuugu jirta maxaa kuugu raray buu ku yiri markaasuu yiri warniyo waxaan caado ii ahayd maalin walba inaan wuxuun sadaqaysto maantana wax kasta hadaan raadiyay basasha waxaan ahayn gurigii waa ka waayay miskiin basal u baahan baan raadinayaa buu marka oo baadi goob haya yaani waxa weeyaan
wax aad u qiimo badan waay haddaad caado ka dhigato maalin walba inaad miskiin wax siiso wax ku sadaqaysato muxuu ahaayey gacantaadu furnaato waa wax aad u qaali ah waxaad helaysaa ducadaas malagaad heli meela aadan filayn baa wax lagaaga furi ilaan ilaahay tabaaraka wa tacaala dadka tabarta daran u naxariisashadoodu inoogu naxariisanaya wahal tunsaruuna wa turzaquuna ilaa biducafaa'ikum buu nabi sallallahu alayhi wasallam dadka tabarta daran ee danleyda ee duruufaysan sababtooda unbaa laydinku irsaaqahayaa oo ilaahay idinku hiilinaya tabaaraka wa tacaala marka ayagaasi ogow oo ka warhay oo hays halmaamin maalin walba wuxuu soo qaad waxoogaa kolba tabartaada liyunfiq duu sacatin min sacati haddaad waxoogaa ladan tahayna gacantaadu wax ladan ha bixiso wax kugu aadma haddaad waxoogaa iska tabar daran tahayna tabartaadaa waxuun u dhigma bix juhdu lmuqili baa la yidhaahdaa afdalu sadaqati juhdi lmuqili buu nabi sal alay wasalam sadaqa waxaa ugu fadli badan mid tabar daran oon waxba haysanin waxoogaa dadaal uu bixiyey haba yaraatee leanna waxa weeyaan meeshay ka soo go-aysaa khatar meeshuu nabigu sal alay wasalam sabaqa dirhamun alfa dirham hal dirhama oo nin bixiyey baa ka fardi batay 1,000 dirham oo nin kala bixiyey sababta ku tiim taqaan waxa laga yaabaa kana halkaasuba ka naxay halku ka naxay buu bixiyey kana xoolihiisu ismaba yaqaanaan oo hadduu 1,000 dirham bixiyey maba tabinba labadaasi ma isku dadaal ma xooluhu haba kala badnaadeen laakiin ictibaarta weyn waxaa yeelatay dadaalka adoonka xagee buu ka soo bixiyey seebuuse ugu baahan yahay shaygan uu bixiyey sooma marka waxa karaankaaga waa midna ogu oo quraanku wuxuu inoo sheego inoo tilmaamay muxuu ahaayey waxaad bixinaysaani inta karaankaaga wax wanaagsan ka dhig anfiqu min tayyibaati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardi maxaa laga dambeysay ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه midka xun un hadaad ka abaarto neefka lugta jaban iyo midka jiran iyo xoogaa muxuu ahaayey shilinka jeebka ka cusleeyay iyo waxa uu hadaad ku ag wareegaysato alla wuxuu leeyahay idinkuma maydaan qaadateen inda isku qabad oo inaad ku qaadataan mooye idinkoo faraxsan maydaan qaadateen hadii la idin siiyo adoo baahan waxyaalaha qaarkood maada qaadateen wixii aadan qaadateen dadka ha u qoodin nabigu sallallahu alayhi wasallam maalmaha kamid wuxuu soo maray nin beer buu lahaa markaasuu laan beertii kamid intuu soo gooyay timirta mideeda xuno xashafka la yiraahdo xashaf ayuu laan kamid intuu ka soo jaray buu meel ka laalaadiyo masaakiinta cuna ku yiri masaakiintii marka timirtii xunayd bay googoosanaya markaasuu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam warqinwigan iyo laantan xashafka yaa meesha dhigtay oo ugu tala galay in muxuu ahaay masaakiintu cunaa in hada yaakulu xashafan yawm alqiyamah nabi sallallahu alayhi wasallam soo timir xununa baxsanin timir xunun buu aakhira heli doonaa wixii xumaay uu baxsaday buu tag wax fiican bixi marka taa macnaheedu marka waxa weeye tabartaada waxaad heli karto xoolaha ka sadaqee waxyaalaha risqa waasica lagu helo waxaa ka mid ah oo qodobka 8aad noqon kara qaraabo xidhiidhinta inaad qaraabadaada ka xidhiidhso oodan qaraabadaada halmaamin oo ehelka u roonaato dadka kula dhashay dadka xididka ah dadka hooyo xaggeeda ka yimid aabba xaggiisa ka yimid dadka ehelada ah qaraabadaada inaad u roonaato risqaagay waasac ka dhigi cimrigaagana way barakayn xadiidkaasi bukhaari iyo muslim baa soo saaray macnaha tilmaamaya min xadiidi anas ibn malik nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu ruuxii jecel in risqa loo fidiyo
oo risiqa loo waasiciyo raadkiisana loo dibdhigo macnaa waxaa laga wadaa cimriga loo dheereeyo qaraabadiisa ha xidhiidhiya buu nabigu sal alla alay wasalam bukhaari muslim baa soo saaray min xadiidi anas bukhaarina wuu soo saaray min xadiidi abi hurayra isagoo ah macnaheedu waxa weeye haddaad qaraabadaada xidhiidhiso xooluhuna waa kuugu badanayaan cimrigana waa lagugu siyaadinaya cimrigana waa lagugu siyaadinaya allah tabaaraka wa tacaala waa kuugu barakaynaya xadiisku macnahaasuu ku cadi haddaad qaraabada goysana ood xoolaha qaraabada aadan ka xidhiidhinna laba arrimood baa lagu isugu kaadari risqana lagu waasicin maayo haddii lagu waasiciyana waa lagugu cadaabi ahlu naarna waa tahay oo nabigeennu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi jannada ma galo qaaticu raxim ruux qaraaba goysa jannada ma galo allah tabaaraka wa tacaala markuu khalqiga abuuray ayaa raximkii qaraabanimadii ayaa inta la matelay baa waxaa laga dhigay sidii yani cid ruux makhluuq hadlahayoo kale ilaahay bay tabaaraka wa tacaala weydiisato waxay tihi rabbiyow meeshaasi soo cid gooyin kaa magan gashay meeshiisii ma aha rabbiyow waxaan magan kaaga ahay in lay gooyo markaasaa rabbi wuxuu ihi tabaaraka wa tacaala miyaadan raalli ku ahayn ciddii ku goysana inaan gooyo ciddii ku xidhiidhisana inaan xidhiidhiyo haabay tihi qaraabadii intaa waa ku qanacsanahay rabbiyow waad igu og tahay buu rabbi yihi tabaaraka wa tacaala waxaad igu leedahay cid ku xidhiidhisay inaan xidhiidhiyo ciddii ku goysana inaan gooyo cidda ku xidhiidhisay maxaa laga wadaa bimacnaa sida nebiga ka sugan sal alla alay wasalam laysa alwaasilu bilmukaafi ruuxa qaraabadiisu markay xidhiidhisana xidhiidhiya markay goysana gooya kaasi xidhiidhiya ma aha kaasi waa nin xisaabtamahayo wax iibsanaya waa haddii lagu xidhiidhiyana dee ho haddaad iga goysana dee way kaa go-an tahay waa nin wax kala gadasho diyaaru ah waay kaas laakiin ninka xidhiidhiyaha nebigu wuxuu yihi sal alla alay wasalam waa ninka qaraabadiisu markay goyso xidhiidhiya qaraabadii oon ku rabin baad adigu daba socotaa ayadoo ku qadiso ku jartay baad adigu rabtaa inaad xidhiidhiso kaas weeye waasilka qaraabo xidhiidhiyaha ilaahay tabaaraka wa tacaala risqa waa ku waasiciya macnahaas waa xadiidka nabigu tilmaamaya sal alla alay wasalam waxaa kaloo rasuulkeena ka sugan sal alla alay wasalam inuu yidhi laba dembi ayaa ugu badan dunuubta ilaahay tabaaraka wa tacaala uu soo dedejiyo aakharana cuquubadeeda dadka u dibdhigo waxaa ugu degdeg badan laba dembi albagyu wa qatiicatu raxim gardarrada qaraabogoyntana iyadana cuquubadeedu ma daahdo marka inaad aduguna iska nooshahay oo dheregsan tahay oo xoolo meelaad kala dhigi laadahay adeeradaa iyo abtiyaasha iyo eedooyinka iyo habaryaraha iyo ilmaadeeradaana ay gaajadu dubanayso laga yaabo inay badaha ku baaba'ahayaan laga yaabo inay muxuu ahaayey ay gaalo iyo kaniisado u galeen gaajo daraaddeed adiguna meeshan aad xoolo ka dheregsan tahay isqaban mayso marnaba lagu barakayn maayo khayrna ka gaadhi mayso abadan wixii ilaahay ku siiyo tabaaraka wa tacaala ha yaraado qaraabada sii kula dadaal u dir kaga warhay qaraabadu ha noolaato ilaahay tabaaraka wa tacaala waa kuu fidinaya risiqa waana ku waasicinaya waxaa ka mid ah qodobka sagalaad noqon karaya waxyaalaha risiqa waasiciya ducada wuxuu nabigu yidhi sal alla alay wasalam adducaau yanfac mima nazal wa mima lam yanzil ducadu waxay wax ka tartaa wax dhacay iyo waxaan dhicinba wax ku haysta ducadu waxbay ka tartaa wax kugu soo socdana ducadu waxbay ka tartaa bal nebiga waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu yidhi haddii uu jiro shay uun qadar ilaahay qadaray baajinaya hadduu jiro waa ducada waxaa ka sugan oo uu yidhi addoonku markuu ducaysto ilaahay wuxuu qadaray ee uu kuu qadaray iyo ducadiibaa
iska hortagaya laga yaabaa in maalan kaba soo qaad cudur muayana kugu qadaray ilaahay baad barido waxa tiri ilaahu cudurrada noocaas iga ilaali ducadii iyo qadarkii baa isu tagaya wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam waxay ku lagatamayaan dhexday ku lagatamayaan ilaa qiyaamadu ka iimaanayso bimaana ducadii baa ka hortagaysa ducadii baa ka hortagaysa oo qadartii rabbi tabaaraka wa tacaala iyo iyadii ayaa lagatamaya adigii baa laga celinaya ducadaadii baa ku difaacaysa macna طبعا waa qadarta lagu tala galay marka horeba inay ducadu baajiso aw qaadan waxa jira maqaadiir alla qadaray oo qadarteedu ay ku xidhan tahay asbaab waxa kamida mesela asbaabtan hadda aan leenahay rizqi waasicisa Allah tabaaraka wa tacaala rizqa wuu qoray laakiin waxyaalo badan waxay ku xidhan yihiin adoonku hadduu sababta la yimaado waxa hal siiyo hadduu ducada la yimaado waxa ha loo furo hadduu sababta sameeyo waxa hal siiyo marka sababtii marka la timaado wixii waa lagu siinaya saas macna marka ducadu waxyaalo fara badan bay furtaa waana wax Ilaahay aad u jecel yahay tabaaraka wa tacaala adoomadiisana waa ka aqbala inaad marka Ilaahay weydiisato tabaaraka wa tacaala rizq waasica oo uusan kugu ibtileen inuu ku siiyo hadduu ku siiyana inuu fitnadiisa ka xifdiyo fitnadiisa inuu ka dhowro saxaabada qaar koodna nabigu waa ugu duceeyay salawaatu rabbi wa salaam alayhi sida Anas ibn Malik oo kaleeto nabigu wuxuu ugu duceeyay salawaatu rabbi wa salaam alayhi ilaahu xoolihiisa badi caruurtiisana badi cimrigiisana dheereen Anas wuxuu kamid ahaa saxaabada ragii ugu cimri dheeraa 90 iyo dhowr sano ayuu gaadhay baa la yiraahdaa caruurtiisii caruurtay sii dhaleenna waxa la yiraahdaa markuu dhimanayay 100 way ka badnaayeen xoolihiisana meel la kala geeyaba la waayay saddexdiiba nabiga uu ugu duceeyay Ilaahay baa u aqbalay tabaaraka wa tacaala marka yaani waxa way ducayso ducadaas Ilaahay tabaaraka wa tacaala aad weydiisanayso waa waxyaalaha khasnadahaasi rizqo ku jiro lagu furtay kamid tahay qodobka tobnaad oo insha Allah tacaala aan isleeyahay waa ugu dambeeyaa muxuu ahaayay waa farbadihiin asbaabtu laakiin qodobka tobnaad aan ugu dambeeyay insha Allah tacaala waxa weeye iqaamatu sharci Ilaahi tabaaraka wa tacaala fi ardihi Ilaahi tabaaraka wa tacaala sharcigiisa in dhulka lagu oogo oo kitaabka Ilaahay iyo sunnada nabigu ay dhulka ka taliso Ilaahi tabaaraka wa tacaala rizqo ku furaya faqriga iyo baahidana waa ku baabi'inaya arinta iyada ah quraankuna waa tilmaamay ahadiista nabiguna waa tilmaantay salawaatu rabbi wa salaam alayhi quraanka kale Allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yiri walaw annahum aqaamu at-taurata wal-injil wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah وكثير منهم ساء ما يعملون waxa laga hadlayay labadii mujtamac ama bulsho ee inaga horeeyay tawreed iyo injiil labada kitaab laha Allah wuxuu leeyahay haday toosin lahaayeen istaajin lahaayeen tawreed iyo injiil labadii kitaab ee Allah soo deji iyo wixii Allah u soo dejiyay haday istaajin lahaayeen oo dhaqan gelin lahaayeen oo ku amal fali lahaayeen waxay ka cuni lahaayeen korkooda iyo lugahooda hoostoodaba way ka cuni lahaayeen la akalu min fawqihim korna waa laga irsaaqi lahaa hoosna waa laga irsaaqi lahaa way dhergi lahaayeen wayna noolaan lahaayeen waxa kale nabigeena ka sugan salawaatu rabbi wa salaam alayhi in uu yiri waxa nicmo lahaatay oo aad u wanaagsan nolol ciise kadib nabi ciise xilligu iimaanay noloshaas qiimo lahaatay buu nabigu salawaatu rabbi wa salaam alayhi xilliga nabi ciise iimaanayo waxa ka hormaraya sida xadiista nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam waxa iimaanaya muxuu ahaayay mahdiga iimaanaya mahdigu waa nin ummadan kamida oo nin saalix ah oo nabi maxamed salawaatu rabbi wa salaam alayhi abtirkiisu u galo nabiga magaciisa oo kalena wata salawaatu rabbi wa salaam alayhi iyo magicii nabiga magicii
nabiga aabihi iyo kan aabihiina waa isku magac isaguna maxamed baa la yiraahdaa sida nabigeena maxamed loo dhigi jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh nin magaca wata ayaa imaanaya aakhiru zamaanka wuxuu imaanayaa oo ku soo beegmayaa xilli dhulka dulmi laga buuxiyey oo dhulka gaalnimo iyo dulmi iyo jawr uu tifka yahay xilligaa markuu yimaado dhulka cadaalad buu ku soo rogayaa sharciga rabbi buu ku soo rogayaa dulmigii iyo gardaradii iyo xumaantiina meeshuu ka saarayaa xilligaasi waqti buu joogayaa 7 mise 8 sano ayuu joogayaa dhulka muddada gudaheeda waa muddada uu soo degay nabi ciise calayhi wa ala nabiyina salatu wasalaam waa ninka nabi ciise uu ku daba tukan doono waay markuu soo dego oo ummadda nabiga uu hogaaminayo nabi ciisena uu soo dego ayay isu imaanayaan markaasuu wuxuu leeyahay ina tuji buu leeyahay nabi ciise la odhanayaa na tuji markaasuu wuxuu leeyahay maya ilaahay karaamayn ummadda nabi maxamed uu karaameeyay baa jirtay salaada inaga saara nabi ciise marka ku daba tukanaya nin aad u karaamaysan waa ninkaasi markuu yimaado oo dhulka cadaalad ku soo rogo oo kitaabka ilaahay la dhaqan geliyo iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu nabigu sheegay salawaatu rabbi wa salaamu calayhi dhulku siduu u barwaaqoobayo ee loo dhergayo wax baahan baa la arki maayo nin baa doonaya inuu sadaqo baxsado gurigiisuu ka soo baxaya sadaqadii buu wadaa jidadkuu wareegayaa waryaa iga qaatuu leeyahay wax ka qaadanaya ma jiro dahabkii iyo dheemankii iyo wax kastoo la jecel yahay maalinkaa wax kala qaadanaya ma jiro nin kastoo uu la tago war iga qaada uu yidhaahdo hadda ka hor bay kuu habboonayd buu leeyahay maalinkii la baahnaa baad baxsan lahayd hadda Soomaa waxba ugama baahnin la dhereg maxaa keenay waxa keenay sharciga ilaahay baa dhulka lagu maamulay ilaahayna tabaaraka wa tacaala cir iyo dhulba wixii khayr ahaa buu dadka u furay sida nabigu tilmaamay salawaatu rabbi wa salaamu calayh hal neefo xoola oo irmaan ah baa wuxuu caanihiisu deeqayaan rag aad u fara badan baa intay ka dhergaan baa iyadoo caano la bay ka dhaqaaqayaan koox rag ah hal neef baa wada deeqaya xabad rumaan ah yaa rag kooxa inta isugu tagaan bayna dhamaysan karin dhulka iyo dalaggiisa siduu u barakoobay maxaa barakeeyey waxaa barakeeyey sharciga ilaahay dhulka lagu maamulay cadaaladda shareecadii rabbi tabaaraka wa tacaala ilan baaska iyo balaayada iyo faqriga iyo baahida iyo dhibaatooyinkan adoomada haystaay waxa keenaya asaaskiisu waxa weeye kitaab ilaahay bay ka tageen haddii kitaab ilaahay la soo celiyo sharci alle waa la noolaan marka waxa ku tusi xadiidka nabiga salawaatu rabbi wa salaamu calayhi xadiid Abu Hurayra sidoo kale to Nasa'i ibn Majah baa soo saaray waana xadiid xasan way wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam haddun yu'malu fil ardi khayrun li ahli al ardi min an yumtaru 40 sabahan hal had'a oo ilaahay xuduudiisa kamida oo dhulka lagu fuliyo lagu amal falo ayaa dadka dhulka ku nool uga khayr badan 7 waa bari 7 subxood inuu roob u da'o 7 subxood oo roob inoo da'ay khayrka aan ka helayna waxa ka badan khayrka laga helayo hal xad ah oo xuduudda shariicada kamid oo dhulka lagu fuliyay khayrkiyo barwaaqada laga helay adduunyo aqraba waa ka fara badan marka waa mid la inoo diidan yahay maxaa la inoogu diidan yahay shariicada ilaahay tabaaraka wa tacaala mujtamacaadka muslimka ayagaa diintooda raba ayagaa shariicadii raba ayagaa kitaab ilaahay raba maxaa looga hortaagan yahay maxaa la inoogu diidan yahay ma la inoo danaynaya waa sida la inoo tusay waay sida la inoo tusay waxa weeye loo inooga dhaadhiciyay kitaab ilaahay waxa la inooga ilaalinayaa nolosheenna maanta kuma habboona ma istaahilo waa nidaam tagay oo waa hore lagu dhaqmi jiray
laakiin maanta casriga lama socon karo waa la ilbaxay waa la tagay caalam kala la jooga xidigaha la degaya dayaxa la soo taabtay sheekh waxa weey adigana waxaad ka hadlaysaa goorma warkaas la inaga dhaadhiciyo waxa la yiri kitaabkani munaasab ma aha waqtigan la joogo kani wuxuu wax soo bartay thaqafadaas u leeyimid xogaa baa lagu soo akhriyay intaas ku soo ritay wadamada reer galbeedkana uu soo arkay oo markaas wuxuu arkay iyagoo waxoogaana haysta dhulkooduna yara qurqurxsan markaas waxa lagu soo akhriyay maalinka jidka naga qabsataan baad hormar gaadhaysaan kitaabka iyo wadaadada wadwata inta idinku ag wareegaysanayaan waa dibdhac kitaabka waxa loola dagaalamayo barwaaqada ku jirta la ogyahay maalinka la qaato waa maalinka laga madax banaanaan waa maalinka la noolaan waa maalinkan loo baahanaynin waa maalinka laga fiicnaan waa maalinka wax walba muslimiinta isugu duba dhacaya ta lagu diidan yahay ee lagaala dagaalamayna taa iyada waa barwaaqadaasaan leeno ogolayn sooma barwaaqadaasaan leeno ogolayn sidaas daraadeed ilaahay diintiisa iyo kitaabkiisa dhulka maamula oo lagu dhaqo oo lagu socodsiiyo oo muslimiintu qaataan waa asbaabta ugu muhiimsan oo ilaahay faqriga ku qaadaya iyo baahida rizq waasacana ummadda ugu furayo qodobkaasi tobnaad iyo waqtigiyo gabagabay aan ku gabagabayno insha Allah ta'ala intaasi ay kalimadii ku egtahay ma qaano abaynda qorshaha kuma jirin laakiin hadii uu banaanaado insha Allah ta'ala waxaan ka dhigaynaa wixii su'aalaha iyo hadii ay جيران تعالى هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد ورائح وأن الذي أعطاك سوف يعيد ألم تر أن الرزق غاد ورائح وأن الذي أعطاك سوف يعيد ألم تر أن الرزق غاد ورائح وأن الذي أعطاك سوف يعيد ألم تر أن الرزق غاد ورائح وأن الذي أعطاك سوف يعيد ألم تر أن الرزق غاد ورائح وأن